haddana waxa weeye weli waxaynu ku dhex jirnaa annagoo casharkii afaraad marayna fadaa'ilu lqur'aani alkariim ayaanu maaragtay ku dhex jirnaa. xagga axaadiista markii la yidhaahdo waxaanu soo qaadanaynaa haddii alla yidhaahdo xadiis oo isagana maaragtay abu daa'uud uu wariyey sanadkiisuna uu wanaagsan yahay oo saxiixa. xadiiskaas waxaa laga wariyey saxaabiga la yidhaahdo sahal ibnu mucaad aljuhani, asna aabbihiisa uu ka wariyey, aabbahaasuna isna rasuulka uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam. marka can sahal ibnu mucaad aljuhani radia allaahu canhu can abiihi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man qara'a alqur'aana wa camila bihi ulbisa waalidaahu yowma alqiyaamati taajan low'uhu axsanu min low'i shamsi fii buyuuti dunyaa low kaanat fiikum famaa danukum biladii camila bihada. saxaabigan la yidhaahda sahal ibnu mucaad aljuhani waxa uu dhahay waxaa weeye maaragtay mucaad aljuhani oo aabbihiisa waxau dhahay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal, rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man qara'a alqur'aana qur-aanka qofka akhriya wa camila bimaa fiihi oo ku camal fala waxa qur-aanka ku dhex jira. axaadiisa hadda hore aynu usoo qaadannay oo qur-aanka derajada lagu helaayey, ridaha ilaahay lagu helaayey, xadiiskan ayaa qaydaayo qirada kaligeer inaysan waxba taraynin haddaan camalfal ousan jirin ayaa marka xadiiskan laga qaadanayaa. maxaa yeele xadiiskan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay man qara'a alqur'aana qur'aanka qofka akhriya wa camila bimaa fiih, qur-aanka waxa ku dhex jirana ku camal fala, awaamirta qur-aanka ku jirta qaata, waxa nawaahiya oo markaa qur-aanka laysaga reebaya ka hara, qur-aanka camalfalkiisa uu ahaado. qur-aankii saasoo u akhriyey asaga waa ka gudbaayaa. ulbisa waalidaahu yow dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, waalidiintiisa waxaa loo libisayaa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda taajan taaj ayaa waalidadiisi loo gelayaa. marka hadda xadiiskaas marka qofka haddou qur-aanki barto oo u akhriyo oo ku camal falo, qur-aanka ajirkiisa iyo sawowgiisa asaga ku ekaan maayo. axaadiisti hore qofka in markaa isaga lagu jaasinaayo ayaanu soo marnay. xadiiskaana waxaa weeye siyaadadatan waa siyaadatu sabti weeyo waxaa la leeyahay markaasi qur-aanka siyaadada waxaa siyaada u ah inuu qofka saaxibulqur'aanka uu ka sii gudbo oo markaasi dadki ugu sababta ahay qur-aanka uu gaaro. marka hadda tan xadiiskan asna wuxuu noo caddaynaya camalulkhayr, khayrkaa camal uu sameeyey inuu wax kuu anfacayo. maxaa yeele waalidku waxay sabab u yihiin qofkan saaxibulqur'aanka ah, qur-aankaas ou bartay ayay sabab u yihiin. maadaama sabab u yihiinne ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankaas fadiilada uu leeyahay ayaa alla wax ka siinayaa. taasi marka waxay nagu boorinaysaa waalidku inuu sabab u noqdo owlaaddiisa qur-aanka inuu baro, oo uu owlaaddiisa qur-aanka uu baro oo uu kula dadaalo ayay markaasayna tusaysaa. arrintaasuna waxa weeye haddii uu sameeyo waa arrin u soo laabanaysa, fadaa'isheedu asagay u soo laabanayso. laakiin haddii aan owlaaddii qur-aankii aan la barin ee baab adduunye keliya maaragtay xoogga la saara sida dadku u badan yahay oo qur-aankii la iska yaraysto, hadda waxa weeye qiyaamaha la tegi doonaa xaggee taajkaas laga keeni doonaa. ilaa rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man qara'a alqur'aana wa camila bimaa fiihi ulbisa waalidaahu, waalidadiisa. hadda labada waalid oo hadda tasniyadaanu kaliya lagama wadee waalidadiisa waxaa laga wadaa wixii usul ah oo maaragtay ilaa abuuna aadam ayaa soo gelaya. faxayle wa fadlullaahi awsac, fadliga ilaahay aa ka waasaxsan. marka nasiib wanaag weeye markaasi dadkii maaragtay furuucdiisa dad wanaagsan oo saalixiin ah oo qur-aankii ilaahay yaqaano akhrinaya ay u galaan, qof nasiib la waayo.
dadkaas dad nasiib lahay noqonayaan. labadiisa waalidadiisa waxaa loo libisayaa rasuulku maalinta qiyaamo taajan taaj ayaa loo gelinayaa. taaj ilaahay uu bixinayo oo aan markaasi waxa weeye adduunyada iyo fara bani aadam iyo waxaas aan lagu samayn weeye. gacan bani aadam laguma samayn, makhluuq gacantiisa oo dhanba laguma samaynba. waa taaj ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tawaliyo waxyaabihii jannada markaasi raaxadeeda iyo lagu abuuray taaj ka mida waayo. taajkan meesha laga keenayo ilaahay og subxaanahu wa tacaala, laakiin ma ahan wax markaasi makhluuq uu sameeyey oo waxa weeye markaasi meel dawaara ina la geeyey ama maaragtay meel carwaa la suray ee laga soo gadaayo iyo waxaas oo kale ma. low uu axsanu min law shamsi ayuu dhahay rasuulku calayhi salaam fii buyuuti dunya. taajkaas haddana waxa weeye masiyada uu iska leeyahay. waxau dhahay rasuulku calayhi salaatu salaam iftiinkiisu wuxuu ka qurux badan yahay iftiinka oo maaragtay qoraxda. waaba ka qoraxda haddii lacalla taajkaas iyo qoraxdan adduunyada aanu hadda joogno iftiinaysa haddii la isu soo barbar dhigo qoraxdaanaaba la nasakhi lahay oo qoraxdaa laga iftiin badnaa lahay, laga qurux badnaa lahay. ilaan jannada waxa yaalla wax laga warrami kara maaha. marka rasuulku waxau dhahay calayhi salaatu salaam taajkaas ayaa loo gelinayaa. markaasuuna waxau dhahay famaa danukum biladii camila bi haada. haddii hadda waalidki saas la yeelaayo bal maxaad u malayhaysinoo rasuulku calayhi salaatu salaam qofkii qur-aankaas ku camal falay oo waxa weeye qur-aankii uu gaaray in maaragtay qofkaas waalidkiisi sidaas ilaahay subxaanahu wa tacaala taajkaas ugu geliyo. qofkii arrintaas shaqeeyo arrintaas sababta u ahayna balka warramuu dhah wax laga warrami kara maahan waayo. marka derajada markaasi uu gaarayo famaa danukum biladii camila bi haada u dhahay ka warrabou dhahay rasuulku maxaa u malayhiisiina u dhahay qofkii waxaa weeye camila bi haada kan ku camal falay oo qur-aankan maaragtay akhriyey ku camal falay asna see yahay wax laga warrami kara maahan weye. markaas wax laga hadli karo oo laga sheekaysaayo maba ahan kaas. marka hadda man qara'a alqur'aana wa camila bimaa fiihi u dhah rasuulku calayhi salaatu salaam. qur-aankii qira oo mujaradkeeda lama rabo, camalfalaa loo baahan yahay. camalfal in la helo ayaa loo baahan yahay. qur-aanku waa dastuur rabbaaniye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkaas uu keenay. haddee dastuurka ilaahay haddii laga leexdo oo mid jebinaaya la samaysto oo wax kastoo macaasiyahoo qur-aanku reebay fasaxaaya, taas waxa weeye maaragtay waa halaag iyo musiibo waaye. iyo qur-aanka oo maalinta qiyaamo ku dacweeya ayay tegaysaa. marka qur-aanka qofou dacweeyana wax kaloo laga aqbalayo ma jirto. salaad laga aqbali maayo, soon laga aqbali maayo, wax cibaadaho laga aqbalayo ma jirto. qur-aanka qofkau u dacwoodane oo u shafeecane wixii ka dhacdhacayoo kalentood ee ilaahay subxaanahu wa tacaala weydii maayo. waxaa kaloonu soo qaadanaynaa xadiis laga wariyey sayidinaa cali ibnu abi aalib radiallaahu canhu. xadiiskan isagana waxaa weeye xadiis oo maaragtay imaamu tirmidi wariyey. xoogaasa waxaa weeye xadiis oo qariiba weeye oo aan hadda isnaad saxiixa aan lahaynin, laakiin fadaa'ilul acmaal la ysaga qaada karo. waxau dhahay sayid cali rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qara'a alqur'aana qur-aanka qofka akhriya fastadharahu oo waxa weeye dusha ka akhriya qur-aanka xaafid ku noqda weeye fa axalla xalaalahu xalaashiisa xallisha oo waxa uu xalaaleeyay xalaal ka dhig wa xarama xaraamahu waxau qur-aanku xarimane iska xarima adkhalahu llaahu ljannata ilaahay subxaanahu wa tacaala jannaduu gelinayaa wa shafacahu waana ugu shafeecayaa fii 10 min ahli beytihi 10 oo ahlu beytkiisa ka mida ayaa loogu shafeecayaa kulluhum qad wajabad lahum naar oo dhammaantood naar ay u waajibtay. macnaha hadda xadiiskan waalidkii hadda laga soo warramay, laakiin hadda wuxuu leeyahay 10 ahlu beytkiisa ayaa loogu shafeecayaa oo in markaasi 10kaas ahlu beytkiisa u shafeeco ayaa markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u fasaxaya. dadkaasoo haddana ah dad naaru u waajibtay oo dembi naar waajibiya galay ayaa markaasaa waxaa weeye u shafeecaya. hadda marka waxaa weeye qur-aanka inuu akhriyo oo haddana qur-aanka markaas ou daahirsada waxaa laga waraa qur-aanka xaafid uu ku noqdo. wixii qur-aanku ou xallilo ou xallisho, wixii qur-aanku ou xarimo ou xarimo. waa qur-aanka ku camalfalkiisay ka mid tahay. ilaahay jannada ayuu gelinayaa wuxuuna ugu shafeecayaa
toban ahlu beytkiisa oo dhammaantood naar u waajibto. xadiiska markaas imaamu tirmidi soo bixiya, laakiin waa xadiis qariiba laysa lahu isnaadun saxiixun ay dhaheen cumladu markaas muxadisiinta, xadiis isnaad sanad saxiixa ma laha. qur-aanka marka waxa weeye waa qur-aan aad iyo aad u weyn oo mucadama. qur-aanka waxaa la rabaa in asaga faraj lagu dalbo. qofkii waxa weeye amuur ay ka cuslaato waa inuu qur-aanka faraj uu ku dalbo. xadiis oo markaasi waxa weeye isaguna sanadkiisu xasan uu yahay oo laga wariyey abu hurayra jiro, nabigu waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam, qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, laysa mina man lam yataqanna bilqur'aani. rasuulku waxau dhahay naga mid maahan, ahlu hadyigeena ahlu dariiqadeena ka mid maahan. man lam yataqanna bilqur'aani, qur'aanka qofkaan ku gabyin. hadda gabaygu ma ahan qur-aanka gabay camal in loo akriyo qur-aanka lagu dheelo maaha. waxaa laga wadaa macno weyn oo xadiiskaanu iska leeyahay. waxaa jiri jirtay carabta dadkii maaragtay luqadatan iska lahay jaahiliyadii iyo maaragtay islaamkaba, qofka markii waxa weeye dhibaata ay qabato waxay markaasi soo qaadan jireen, ilaahay ku bari jireen, ama ay ku inshaadi jireen, amay inshay jireen gabay oo markaasi xusnigiisa iyo dhibaatadiisa iyo in ilaahay faraj u furo oo ku cabiraayo gabaygaasoo ay samay jireen. dadka hadda waad aragtaa gabya oo markaasi waxay markaasi ay gabaygaas ay alla ku baryaan mararka qaarkood, waana la ajiibaa. marka waxa weeye meeshii gabay ilaahay subxaanahu wa tacaala sida loo jeclaa jiro ay dadku u ictiqaadsanaayeen inay hadday gabay ilaahay ku tuugaan oy ku dan sheegtaan wax ku helayaan, waxaa markaasi la rabaa qur'aanka inay markaasi ay akhriyaan oy qur'aanka ilaahay ugu tawasulaan ayaa la rabaa. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam man lam yataqanna bilqur'aani macno badana leedaha, laakiin hadda baawil xadiisna ma joogno. waxaa weeye markaasi qunadatan waxaa kaloo lagu sheegaa qur-aanka qofka markaasi qirada si fiican qurxan u akhriya, oon markaasi qur-aanka aan si wanaagsan aan u akhrin, oon markaasi xuruuftiisa shadkiisa wixiisoo dhan maaragtay aan ilaalin. falaysa mina in loola jeedo. waxaa kaloo markaasi loola jeedaa qur-aanka qofkaan ku faraj dalbin waayo meeshaan. taasaana hadda qaadanaynaa, qofkaan qur-aanka ku faraj dalbin oon faraj qur-aanka ku raadin naga mid maahan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka waxaa la rabaa qur-aanka in faraj lagu dalbo ayaa loo baahan yahay. oo markii waxaa weeye arrimo ay kaa culus tahay, qur-aanka ilaahay inaad akhriso si ilaahay subxaanahu wa tacaala cusrigaas kaaga qaado, inaad qur-aanka saas u akhriso ood qur-aanka markaasi ku faraj ku dalabto. sidaas ayaa markaasaa loo baahan yahay. nagaba mid maahan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo qofkaas ahlu hadyigeena ahlu dariiqadeena ka mid maaha. qur-aanka marka waxaa weeye marna waxaa weeye qiradiisa waa la siraystaa, marna waa lala jahraa. intaasba waxaa weeye markaasi sida hadda markaasi qofka xaaladiisu ay tahay ayaa markaasaa la fiirinayaa. xadiis isaguna xasana laakiin qaraabana ay ku jirto oo waxa weeye laga wariyey cuqbata ibnu caamir radiyallahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuulallaahi ilaahi rasuulkiisaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo dhahaya, aljaahiru bilqur'aani, qur-aanka midka la jahraaya, kaljaahiri bisadaqati, sadaqa mid la jahraaya oo kala weeye. walmusiru bilqur'aani, qur-aanka midka siraysaa hoos u akhrisaayane, kalmusiri bisadaqati, sadaqa mid siraysaa uu la mid yahay. waatou dhahay aayadda qur-aanka haddii alla yidhaha waa ku tegi doonaa suuratulbaqare, in tubdu sadaqaati fa nicimmaa hiya wa in tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayrun lakum. sadaqada haddaad muujisaan nicmo weeye taasu, haddii aad qarisaan oo dadka fuqarada aad siisaanna way idin khayr badanta. marka qur'aanka waad aragteenoo marna qur-aanka waa lala jahraa, ilaan qur-aanka dad markaad baraysana waad la jahraysaa oo ha lagaa maqlo si looga faa'iidaysto ayaad isleedahay. marna qur-aanka qirada hoosaad u akhrisanaysaa, marba si uu kugu soo maraya qiradu. marka labada arrimoodba waxaa weeye qofka qur-aanka nabigu waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam, aljaahiru bilqur'aani, qur-aanka midka la jahraaya, kaljaahiri bisadaqati, sadaqada mid la jahraa u la mid yahay. sadaqada waxaa la yidhaahdaa aayaddaas dii ilaahay tafsiirkeeda ku tegi doonaa insha allahu.
hadday sadaqadu sadaqa oo farad ay tahay sidii sikadoo kaleentood waxaa fiican markaasi idoo lagu arkaayo inaad bixiso oo lagu jeedo si waxa weeye munaafiqnimo aan lagugu tuhmaysanin dadkuna ay kuugu daydaan. hadday sadaqadu ay tadawuc ay tahay oo aysan faral ahayn waxaa khayr badan inaad qariso si qarsoodiya inaad ku dhiibtaa ku khayr badan oo lagugu ogaanin oo lagugu sheegin taasay ku khayr badan tahay. marka qofka hadduu quraanka la jahro waa qof sadaqa la jahraayo oo sadaqa dhiibaayo idoo la arkaayo. qofka quraanka wal musirru bil qur'aani quraanka midka siraysanayane kal musirri bis sadaqati midka sadaqada saraysana la mid yahay. hadiiskaas waxa weeye Abu Daawud iyo Nasaa'i ayaa wariyay, Imaamu Daarimi waa wariyay, Tirmidhi waa wariyay. xadiis oo maartay xasana weeye laakiin xoogaa qaraabaha ku jirta. marka sidaas ayaa quraanka meel ka soo la fiisho, quraanka Ilaahay meel ka soo la fiisho wax laga warrami kara maaha. saasa la leeyahay. marka waxaan soo qaadanaynaa xadiis kale oo isaguna xadiiskaas la xiriira. waxa rasuulku kaleey salaam man qaama bi10 aayatin qofka u quma 10 aayadood mesela waxa weeye 10 aayadood wuxuu ku akhriyay faatixadu ku akhriyay salaada dhexdeedu ku akhriyay ama si kale u akhriyay lam yuktab min al-ghafiliin dadka ghafiliinta ah oo dhikriga Ilaahay halmaansan diiwaankooda lagu qori maayo. waman qaama bi100 aayatin boqol aayadood qofka u qumane kutiba min al-qaanitiin waxa lagu qorayaa diiwaanka qaanitiinta mudiiciinta Ilaahay adeecay diiwaankooda lagu darayaa. hadda qofku hadda inta uu quraan akhrinayo waxa weeye boqol aayadood iyo ka badan oo akhrinaya. hadduu 10 akhriyo waxa diiwaanka qaafiliinta kuma qora. haddii marka waxa weeye oo boqol akhriyane qaanitiinta diiwaankooda lagu qorayaa. waman qaama bi1000 aayatin kun aayadood qofku u qumo istaaga kutiba min al muqaddiriin waxa lagu qorayaa dadka markaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala u tawaaluca. marka hadda aasaar fara badan ayaa maartay quraanka ku soo aroortay xadiis aan la soo koobi karin oo quraanka markaasi waxa weeye ka hadlaysa maartay falaa'isha uu iska leeyahay. quraanka markaasi akhrintiisa la akhriyo iyo faa'iidada markaasi waxa weeye uu iska leeyahay oo wax la soo koobi kara aan ahayn. marka hadda wax yar in la isaga ishaaro umbay noqonaysaa mooyaane quraanka ayaan markaasaan falaa'ishiisa ka waramaya ma ahan. quraankan Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadiim ayaa Ilaahay ku tilmaamay. Ilaahay wuxuu cadama ku tilmaamane cid makhluuq oo ogaa karta ma jirto oo Ilaahay rasuulkiisa wuxuu yiri walaqad aataynaaka 7 min al-masaani wal-qur'aan al-'aziim la tamuddanna 'aynayka ila ma mata'na bihi azwaajan minhum ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عدين إلى آخر الآيات. بركة قرآنك إلهي رسولك يسحو كلها وحانو قصينا سيدك محمد كاهو 7 من المساني تضبط لسوء العليو 7 المساني ده سيدا المفسرين تقول وحاوية وفاتحة ليري فاتحة يا 7 المساني ليري لأنها تصنى في كل ركعة محايلة ركعة كستا لو سو عليا. فاتحة وحوي ركعة كستا أو صلاة فاتحة ولا سو علينيا. 7 من المساني وانا تضبع آيادات خلاف كجرا وكتجي دونا هدي على يرادو بسملة إيه مركز بسملة لأنته وحيابها دام فاتحة جار إنه أنا كهذا دونا يكمتهاي مركزي و7 من المساني أيان قصيني وهذا مركزي والقرآن العظيم وإياه قرآن كويناي قرآن كهذا وين فاتحة كمدواي وحل وخصيصي وحيابه خواص قارو إسكالله إيه أيضا مفتاح كتاب الله إليه كتاب كيسة تيلو غفرطيئة أسرار بدن يكون جرت مارتها فاتحة داس وعجيبة وي هذا الباب كله جلاي كتابك إلهي ويت أيته هذا نوع حال الله دورتي صلاة مركز إن أيضا لو أخريه محايلة وحكلا هذا لو أخريه قرآن كي أسوق قرآن كي أي كمتها قرآن كي نور فضائل وياهي وحكلا هذا صلاة دي مارتها يكون أنصح ميس والقرآن العظيم وهدنا ده إلهي قرآن كي وينا أيان قصين وحا متفق لوياهي
shay ilaahay hadduu cadamo ku tilmaamo ama kasra uu ku tilmaamo cid makhluuqa oo markaasi qaayadiisa ama waxa uu yahay ogaa karta ma jirto xataa waxay la yiri xataa anbiyaa wa rusul wal malaa'ika ma ogaa karaan xayra quraankan ilaahay waa quraan ajiib ah wal quraan al azim quraan weyn ayaanu ku siinay ilaahay hadda marka quraanka markii nabiga sidaas loo siiyay quraankii nabiga la siiyay annagana la siiyay oo waxyi rasuulka kaleey salaatu salaam iyo hadiga nabiga ayaanu haysanaa qofka quraanka la siiyana asaguna sidaas oo quraanka doo muadam yahay qofkii la siiyay asana muadam ayuu noqonayaa qof ilaahay agtiisa ku weyn ayuu noqonayaa maxaa yeelay shay cadiima oo cinda Ilaahi ku weyn ayuu haystaa markaas ilaahay wuxuu dhahay la tamudanna aynayka ila ma mata'na bihi azwaaja minhum indhahaaga ha u taaginow ilaahay waxaan ugu raaxaynay asnaaftaas kufaarta oo xaqiiriinta waxaan ugu raaxayno adduunyaa ishaada ha u taagi nasiib darrada hadda nahaysa annagoo islaamka ilaahay na siiyay quraankiina la siiyay ayaan saas gaalada indhaha ugu haynaa ilaahay uu naga reebay rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam khitaabku asaga ayuu ahay laakiin wal muraadu ghayruhu waay rasuulka kaleey salaatu wasalaam wax la siiyay makhluuq gaar ahaan kufaar wax la siiyay ishiisa u taagi ma waxa weeye asaga waa lagu la khitaabay muraadkuna waa qeyrkiisa weeye la tamudanna aynayka ila macnaha hayeelay sab'an min al-masani wal qur'an al-azim ayaanu khusiinow ilaahi marka qof waxaas haysta cid inuu isha u taaga miya la quraanka ilaahi oo lagu siiyay hadaad wax kale indhaaga u taagto sida xadiis asar oo soo aroortay sayyidina Abu Bakar Siddiq oo dhahay qofkii markaas quraankaas la siiyo oo qeyrkiisu arka wax asaga la siiyay wax ka badan in la siiyay wuxuu xaqiray wax weyn markaasuu wax xaqiirahu oo maartay u weynay quraanka ilaahi ayuu xaqiraya qofku markuu adduunyo oo siisanayo oo adduunyadii markaasi meesha uu ka helaba markaasi mabda'iisa oo la jiro taas waxa weeye qof quraanka ilaahay xaqiray waay marka quraanka sidaas ayaanu haysanaa inaanu maartay ku kaaftoono ayaanu loo kaga baahan yahay marka insha Allah ta'ala qaybo kale waxaanu ku qaadan doonaa casharkeena dambe soo socda hada casharkeena afraad oo fadaa'il quraan inta sunnah uu egyahay wala subhanahu wa ta'ala alam wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh